guushu way aabayaal badan tahay guuldaraduse waa agoon in ay Kenya ka baxdo dhageysiga dacwadda badda waa labin u soo hooyatay Soomaaliya waxaana mahadiida iyo abaalkeeda leh madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dacwadaasi horgeeyay maxkamadda ICJ bishii Agoosto ee 2014 Xasan Sheekh wuxuu kiiska badda siiyay tixgelintii ay mudneed isaga ayaana gacanta ku hayay galka badda oo warqad uu saxiixay ayaa dacwadda lagu geeyay ICJ isaga ayaana magacaabay qoraradii Soomaaliya wakiilka ugu ahaa dacwadda markasta oo ay kiiskani wax ku soo kordhana wuxuu la hadli jiray warbaahinta wuxuuna shacabku ugu warbixin jiray halka ay wax marayaan madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu kiiska badda u maareeyay si xilkasnimo leh wuxuuna dacwadda badda u yeelay dareen qaran oo markasta oo maxkamadda la tagayo waxay dawladda casuumi jirtay saxaafadda baarlamaanka qurba joogta iyo bulshada rayidka taasi ayaana suuragelisay in ay markasta shacabka si dhow ula socdaan halka ay dacwadda marayso markii ay maxkamadda ICJ aqbashay inay qaado dacwadda badda wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri waxaan ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadayaa inta aan noolahay haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aan madaxweyne ahaynba in aan marnaba raali ka noqonayn in la qaato mitir ka mid ah biyaha Soomaaliya ma jirto sabab aan ugu tanaasuli karo shalay ayaan lahayn oo awaawiyaasheena ayaa lahaa maanta annaga ayaa leh kuwa naga dambeeya ayaa beri lahaan doona Xasan Sheekh wuxuu muujiyay inuu madaxda maanta ugu lex jecel badan yahay badda Soomaaliya wuxuuna ka dhaweeyay ballanqaadkiisa ah inuu u taagnaan doono qadiyadda badda oo malaha ma jirto mar uu hadlay uusan arinkani soo hadal qaadin madaxdana ugu baaqan in ay kiiskani siiyaan miisaanka uu mudan yahay May 2020 ayuu warbaahinta la hadlay waxa uu yiri dacwadda badda waxay 4 sano taagan tahay meeshii aan ugu tagnay 3 jeer ayaa dacwadda dib loo dhigay dawladdeenu waxay mar walba noo sheegtaa inay diidaneed in dib loo dhiga balse wax intaasi caddeyn ah marnaba shacabka lama wadaagin guushu waa aabayaal badan tahay libintuse maanta badda ugu soo hooyatay Soomaaliya waxaa miraha geedka uu Xasan Sheekh beeray 2014 waa juhdigii iyo halgankii uu galay 7 sano ka hor sidii uu u taagnaa isagoo madaxweyne ah iyo isagoo aanan ahaynba ayay ugu tahay dhaxal aan duugoobaynin haddii uu nool yahay iyo haddii uu dhintaba si kastaba oo maanta la isugu dayo in libintaasi la afduubto shacabku way egyihiin taariikhduna way xusu doontaa caruurtiina waan ugu sheekayn doonaa inuu Xasan Sheekh ahaa madaala markasta u taagnaa difaaca qadiyadda badda Soomaaliya waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u ballan qaadaya inta aan noolahay haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan madaxweyne ahaynba marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaagaynin mitir ka mid ah biyaha Soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanayn ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadaya haddaan xilka ka degana qadiyadaas waa u taaganahay haddaan xilka sii hayana qadiyadaas waa u taaganahay biyaha Soomaaliya annaga iskale inta yarta ee la isku haystaa waa yartahay badda aan leenahay marka loo fiiriyo laakiin annaga iskale mitir hano ahaata haday doonto annaga leh 150,000 oo square kilometer waaye annaga iskale laakiin hal mitir haday taxta annaga leh sabab aan uga tanasuli karnaa ma jirto sabab aan u deyn karnaana ma jirto shalaan lahayn awooyaasheena lahaa annagoo nool maanta leh kuwa naga dambeeyo biri ay lahaan doona khayraada ku jira iyo barwaaqa ku jirta iyo ma aha waa mabda waxa aan leenahay inaan cishan Xasan Sheekh ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay qof kaalin mug leh ka qaatay kiiskan isla markaana xukuumaddiisu ay tahay midii ugu horeysay ee kiiskani geysay maxkamadda cadaaladda ee adduunka ee ICJ guul ayaan u rajaynayaa kooxda difaaca baddeena waxaan ku baaqayaa inaan garab istaagno innagoo meel iska dhigayna waxyaabaha kale ee lagu kala aragti duwan yahay ayuu Facebookiisa ku soo qoray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri difaaca baddeena waa mas'uuliyadda qof kasta oo Soomaali ah waan guuleysanaynaa insha Allah iyadoo ay Kenya isaga baxday kiiska ayaa dacwadda dhageysiga maxkamadda ay jirtaa maanta waxaa magaalada Hague ee dalka Holland ku sugan wafdigu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahdi Guuleed
xeer ilaaliyaha guud ee Kenya Kihara Karuki ayaa go'aanka Kenya ay ugu baxday kiis u gudbiyay maxkamadda ICJ 11 bishan March. Kenya waxay jeceshahay inay maxkamaddu ku wargeliso inaysan ka qayb gali doonin dhageysiga ee la jadwalay 15 March ayuu xeer ilaaliyaha Kihara Karuki ku yiri warqadda uu qoray. Kihara Karuki ayaa warqadda ku sheegay in cudurka COVID-19 dartiis aysan Kenya awood u yeelan inay sidii loo balansanaa ugu diyaar garowdo kiiska, isla markaana cudurku ku yimid markii Kenya ay qoratay koox cusub oo qareena ah. Kenya ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay in cudurka COVID-19 dartiis miisaaniyaddii dalka ay gaartay waxyaalo weyn, taas oo saameyn ku yeelatay u diyaar garowga Kenya ee ah inay kiiskan iska difaacdo sida qoraalka lagu yiri.